noloshu waa biyo, la'aantoodna nololi ma jirayso. Jidhka bani aadamka isku celcelis ahaan waxaa la sheegaa in 60 ilaa 55% inta u dhaxaysa uu yahay biyo. Xilliga dhalashada xataa carruurta yaryar waxay dhalataa iyagoo ku lamaanaysan xaddi biyo oo badan, waxaana carruurtu marka ay dhalato 75% ay yihiin biyo. Haddaba barisweydii door intee leeg ayay biyuhu ka ciyaaraan nolosheena? Xaddi intee leeg oo biyo ah ayaynu u baahannahay inaynu cabno maalintii? Cabitaanka biyuhu waxay muhiim u yihiin lafaha jidhka si aanay isu lisin. Biyuhu waxay ilaaliyaan heerkulka jidhkeenna. Waxay kaloo muhiim u yihiin maskaxda iyo lafta dheer ee dhabarka. Biyuhu kuma jiraan oo kaliya dhiiggeenna balse wadnaheenna 4 meelood marka loo qaybiyo 3 ka mid ah waa biyo. Sanbabadeenna 80% waa biyo. Lafaha waxaa muhiim u ah biyaha sida aynu hore u soo sheegnay, waxaana 30% lagama maarmaan u ah lafuhu inay helaan biyo. Laga yaabaa inaad isweydiiso, haddiiba jidhkeennu biyo u badan yahay, maxaynu ugu baahannahay inaynu biyo badan cabno? Waa ay fududahay su'aashaas jawaabteedu, bal halkan soo yar eeg. Maalin walba jidhkeenna waxaa ka baxa 3 litir oo biyo ah, gaar ahaan xilliyada aynu kaadino, dhididno, ama aynu samayno dhaqdhaqaaqyo kale. Xataa marka aynu neefsanno, waxaynu luminaa xaddi ka mid ah biyaha jidhkeenna ku jira. Haddaba si aynu u ilaalino caafimaadka jidhkeenna, waxaynu u baahannahay inaynu cabno maalin walba beddelka biyaha jidhkeenna ka baxa. Si aynu jidhkeenna uga ilaalino inuu qalalo sida geedka marka la waraabin waayo oo kale, amaba geedka marka ay biyuhu ku bataan in waxyeello ay u geystaan. Labadaasi xaaladoodba waxay waxyeello weyn u geysan karaan caafimaadkeenna. Bal marka hore aynu soo qaadano biyo yaraanta. Marka aanu jidhkeennu helin biyo ku filan, waxa markiiba ay maskaxdu dirtaa baaq ama signal si toos ugu dhacaya kelyaheenna, kuwaasi oo sameynaya in biyihii dhiigga ku jiray ay soo baxaan. Waana sababta marka aynu cabbi weyno biyo inagu filan, ay kaadideennu noqoto huruudda amaba jaallaha madow xigeenka ah. Astaamaha lagu garan karo biyo yaraanta jidhkeenna waxaa ka mid ah inaad dareentid daal iyo daciif xoogan, in aad dareentid cadho iyo dabeecadda oo kaa xumaata, jidhka oo engega, indhaha oo ku casaada mararka qaar, iyo weliba dhiigga oo sare u kaca. Xilliyada aad jimicsiga samaynaysid, haddii jidhkaagu biyo la'aan dareemayo, ma awoodaysid inaad hesho tamar aad ku dhammaystirto qaaditaanka biraha amaba dhaqdhaqaaqyada kale ee aad samaynaysid. Geesta kale, haddii aad cabtid biyo xad dhaaf oo aan jidhku u baahnayn, waxay khalkhal gelinaysaa hawlihii shaqo ee kelyaha. Haddaba sida caadiga ah waxaa loo baahan yahay in isku celcelis ahaan aad cabto maalintii 8 koob oo biyo ah. Waxaana mar walba muhiim ah in xaddiga biyaha aad cabbaysaa ay mar walba ku xidhan tahay inta miisaankaagu yahay. Tusaale ahaan, qofka lab ee miisaankiisu yahay ilaa 100 kilogram waxa uu u baahan yahay inuu cabbo maalintii inta u dhaxaysa 2.5 litir ilaa 3.5 litir oo biyo ah, halka qofka dumarka ahina loo baahan yahay inay cabto 2 ilaa 2.5 litir oo biyo ah. Waa hubaal haddii aad joogtayso habkan in caafimaadkaaga iyo firfircoonidaaduba ay sii jirayaan. Haddii ay dhacdo in mararka qaar in biyaha cabbitaankoodu kugu adkaado, waa muhiim inaad cuntid khudaarta ay ku jiraan biyaha badani sida strawberry-ga, liinta, kaabashka, amaba shaaha iyo sharaabada kale, kuwaasi oo beddelkooda gelaya halkii biyaha, inkastoo aanay si toosa marnaba u buuxin karin. Daraasado dhowr oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday in jidhka oo laga ilaaliyo in ay ku dhacdo biyo la'aani, in lagaga badbaadi karo xanuunno ay ka mid yihiin faaliga, kansarka, kelyo xanuunka, dhiigkarka, iyo weliba xanuunno kale oo dhowr ah. Haddaba ku dadaal inaad samaysatid jadwal aad ku ilaalinaysid badqabkaaga caafimaad marka ay timaado arrinta maanta aynu ka hadlaynay ee biyo cabbistu. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. Fadlan la sii wadaag si ay uga sii faa'iidaystaan walaalaheena kale.